Bismillaah, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Walaalayaal kusoo dhawaada channelkeena meel kastood joogtiin xilli walba idin tahay. Haddaad nagu cusub tahay please subscribe, share, like, comment. haddaa hore noo joogtiin like and share and comment naga ilaawina insha allah bidmillahi kariim. beelkiina furta hadduu ilaa yidhahda saa u ogaataan video kastaan soo upload gareeya saa u daawataan la socotaan cuntooyinka macaan ayin soo gelinayo insha allah bidmillahi kariim. maanta waxaan noo hayaa cashadaas aan ka sameynay bariis iyo hilib. waxaan sameysanaynaa hadda hilibkii aan dabka saaranaynaa, basalaa dabka soo saaranay, saliid digsiga soo saaranay. marka waxaan sameeyey hilibka waa soo dhaqay khal iyo waxaan kusoo dhaqay biyo cad vinegar. marka waxaan sameynayaa hilibkii baan basashii baan marka hore dabka saartay, kabacdina hilibkan ku kashiilayaa ku darayaa si u yara guduuto hilibka. marka hadda waxaan sameynayaa hilibkii baan ku gurayaa insha allah, kabacdina waan isku yara guduudin doonaa insha allah. hadda waxaan sameeyey hilibkii waan walaaqay, isku soo guduutay xoogaa waa yar umateeyey isku soo waxaysmaday. waxaan ku darsanayaa marka la yiraahdo vegetable stock ama maraq digaaga oo budada ah ayaan ku darsanayaa qaado ku fidhinaya insha allah bidilkani ku dushiisa suu dhanaan uga dhigo qaaday xoogaa. marka waan ku walaaqayaa dan cabaar baan isku yar umateynayaa. hadda waxaa isku qalasmanaya ama isku waxasmanaya isku shiilmanaya basashii iyo maraq digaagii hilibkii iyo saliidii intaa isku shiilmanaya. hilibka wuxuu sameynayaa in yaro dheecaana u sameynayaa, kabacdina isku walaaqsmanaya cabaar baad kula saarayaa. hadda waxaan sameeyey biyihii baan ku shubay, biyo yaro ka karsan baan ku shubtay si uu isku karo oo u sameeyo maraq hilibkana u jilco u karkaro. haddana asxaabi waxaan noo sameynayaa bariiskii. hilibkii waxaan sameeyey dabkaan saartay, dhinaca kale ku karayaa wuu ii karkarayaa. waxaa la rabaa inuu karkaro jilco oo noqdo hilib aad u jilicsan si uu jilicsado dabka usi saari more insha allah. hadda waxaan noo sameynayaa bariiskaas oo aan isagana yar shiilayo. basali waxaan ku daray marka hore basali waxaan kusoo darayaa saliid. markaas saliid ma kusoo daray waxaan hadda ku darsaday xawaajiyo ay ka mid tahay xawaaji kuskus iyo xawaaji dhuudhuub aan soo shiiday iyo maraq digaaga iyo toon yaro shiidan iyo in yaro xawaajiga bariiska loogu talagalay isku jiro intaas ayaan ku daray. waxaa loo baahan yahay marka isku shiilmato bariiskii baan soo qaatay. hadda bariiskii baan ku shubay, bariiska soo qasaasili waan soo dhaqay cabaar yar iradsanaa 30 minutes iradsanaa, kabacdina waan soo dhaqay waan soo qaaday waan ku shubay. markaan bariiskii ku shubay waxaan sameeyey iyo cusbaa dagaalka ka daray bariiska iyo qudaartii oo ku shiilneed oo gudaha ku jirtay. bariiska waa ku walaaqay waa ku labay si fiican ugu labay kor iyo hoos. waxaa la rabaa in si fiican isku dhex gasho bariiska oo qudaarta saliidda u gasho. marka hadda aad baa isku qasayaa. markaa isku qaso insha allah biyihiis waan ku shubanayaa. hadda waan isku qasqasay everything. waxaan ku shubanayaa biyihii maraqa ahaa. maraq waan ku shubtay. marka hadda waxaan sameynayaa isku walaaqayaa maraqiisa iyo bariiskii waan isku karinayaa insha allah bidmillahi kariim. ofinkaan gashanaya hadduu ilaa yidhaahdo bariiska hadda ofinkaan gashanaya insha allah.
halkaa waxaa ii saaran baradho aan ku daray kala yar oo hadhow aan rabo bariiska inaad dusha kaga daadiyo sida jibiskii oo kale ah bad jibis maaha baradho yar waxa weeyaan aan shiilinayo dusha kaga daadinayo bariiska aad uma shiiliyo sidii jibiskii kama dhigay dhima adkeenayo halkaa waxaa ku jirta sabiib yaryadaan aan shiishay hadda waxaan kusoo laabanay hilibkeenii oo aan soo karay biyihii waxa kasta ka dhameeyey hadda waxaan ku shubtay baradhaan kusoo jartay 2 xabo baradho ah iyo in yar yaanyo guduudaha ku darsaday waxaan rabaa inaan qaleeyo digsiga korkiisa ku qaleeyo oo ku shiilo baradhada iyo hilibka iyo yaanyada isku walaaqaya saliid yarna waa ku darsaday waxaan kaloo ku darsanayaa basal yaro basala jeex yaro basala ku darsaday wuxuu isku noqonayaa dhadhanaan yaro macaan waan isku walaaqayaa markaa hadda waxaan kaloo ku darsanayaa qudaar xawaajiyo kala duwan xawaaji dhudhoob iyo xawaaji kuskuus iyo toon shiidan iyo waxaan ku darsanayaa xawaaji kaari saxan kusoo ritay intaas waan ku darsanayaa hadda waxaan sameynaya isku walaaqaya insha allah si wacan baa isku walaaqaya bariiska hilibka xoogaa lafa waaweyn buu leeyahay si waaweyn baa lasoo jarjaray marka waxaa la rabaa in la gaarsiiyo lafta la gaarsiiyo meel walba biyo yar baan ku shubtay isku walaaqayaa marka waxaan sameynayaa in yaroo waxaan u baahanahay inuu sameeyo suuga camal in yaroo kabsar aan ku darsaday dusha kaga daray hadda wuu noo ka karay hilibkayagii iyo bariiskayagiiba labadiiba way ka kareen waan kasoo saaray digsigii waxaan ku shubay hilibkeena soo noogu soo baxay bariiskeena soo noogu soo baxay labadoodii miiskaan saaranay qof walba ka guranaya insha allah bismillaahi kariim meesha isagoo yaalo saxankaas weyna noogu soo guray iyo hilibkii meesha saa kusoo riday marka saasuu kusoo baxday quruxda badan waxaan filayaa ka heli doontaan saan u sameeyey iyo sida fudud iyo waqtiga badan una qaadanin iyo sida yare isku dardaray waxyaabo badan kumaan dardarin oo fara badan oo ka dhigayso shaygii shay badan oo kala duwan marka alxamdulilah intaasaan ka sameeyey marka in yaroo salan dhinacaan u dhigay insha allah bismillaahi kariim please daawasho wacan please anaga ilaawina subscribe-ka share-ka like comment-ka hadduu ilaa yidhaahdo haddaad hore u subscribe gareynin haddaad subscribe gasin like comment-ka insha allah khayr baa idin rajeynayaa meel kasta joogtiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu